بسم الله الرحمن الرحيم وشان لباتنka bisha sagaalaad 2021 ku soo dhawaada telefishinka Hiil Qaran warkii ugu dambeeyay qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxaano ay soo qaban qaabiyeen isla markaana soo agaasimeen kooxda ugu argagixisada ugu weyn dalka Soomaaliya isla markaana dadku u yaqaanaan al-shabaab qaraxan ayaa lagu laayay dad aad u fara badan isla markaana la soo sheegay inay ku dhinteen 8 qof tira aad inta uga badan ay ku dhaawacmeen qoladan al-shabaab ayaa caadaystay muddo 10 sano ah inay laayaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana ku laayaan sabab la'aan waxa la soo sheegayaa inay ku jireen dadkaasi askar dad shacab ah waayeel iyo caruur isla markaana ka dhex adeeganayay magaalada Muqdisho iyagoo si nabad uga soo baxay guryahoodii qoladan al-shabaab ayaa maanta waxa la soo sheegayaa inay halka qaraxaasi uu ahaa qarax midaamin ah isla markaana qof isku soo midaamiyay inuu ku laayo dadka ummadda Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ka dhex adeeganayay magaaladaasi qaraxan ayaa wuxuu ka dhacay meel checkpoint ah isla markaana ciidamadu ay ku baaraan amniga iyo kala dambeynta magaalada wararka laga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan inayan u aabiyeelin qoladan al-shabaab daadinta iyo leynta ummadda Soomaaliyeed maaha markii ugu horeysay ee qarax ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaana ay ku laayaan dad shacab ah dad masaakiin ah waxay wararku inta ku darayaan in ay caadaysteen inay laayaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay ku dhex laayaan magaalada Muqdisho isla markaana ku faanaan dhiigooda iyo leyntooda qoladan xukundoonka ah ee al-shabaab ayaa waxay sheegteen qaraxaasi isagoo iyagu ku faanay isla markaana ku soo qoray barahooda bulshada wararka intaas dheeraadka ah ee aanu idin haynaa ayaa waxaa ka mid ah in maanta ay halkaasi gabar ku dhimatay mas'uul ah oo ka shaqeynaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaana ay ku dhaawacmeen dad kale aad u fara badan daawadayaal waxaan idin soo gudbinaynaa kooxdan dhibaatooyinka ay ka geysteen ummadda Soomaaliyeed ayaa dhibaato tahay tii ugu dambeysay ay geystaan dad badan ayaa laga toogtay kuwa badanna waa lagu laayay iyagoo kuwaasi ah kuwa maxkamadda xukuntay isla markaana lagu helay dambiyadii ay galeen isla markaana waxay u muuqataa inaysan joojinaynin qaraxyada dhumaaleysiga ay ku gaadayaan dadka Soomaaliyeed isla markaana ay ku hagardaaminayaan dowladnimada qoladan ayaa waxay yihiin qolo ajaanib ah al-shabaab ay ku jiraan hadda ka hor asbuucii la soo dhaafay ayaa waxaa la qabtay 2 nin oo ajaanib ah midna u dhashay dalka Ingiriiska midna u dhashay dalka Malaysia kuwaas oo ka dhex dagaalamaya Soomaaliya walaalayaal si shar garay warkan. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.